بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم لا علم إلا ما علمتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelka waa channel cusub. Waxaan u saameynay waalidiinta Soomaalida gaar ahaan waalidiinta ciyaal autism lagu sheegay haysta ama ADHD. channelkan waxaan ka hadlaynaa in details xanuunka autismka, muxuu yahay calaamadaha aad ku garan kartid, maxaa therapy yaala gaar ahaan Europe, cunugaaga markaad ka shakisay maxaa sameyn kartaa aad ku caawin kartid. Waxaa also ka hadli karnaa diet, waxaan ka hadlaynaa exercise, cunugii maxaad u qaban kartaa aad maaragtay naftiisa anfici karo. waxaan ka hadlaynaa toilet training, sidaad musqusha u bari lahayd. waxaan ka hadlaynaa cunto badan sida loo sameeyo oo gaar ahaan ku saabsan ciyaalka autism. ciyaalka autismka marmar waxay ku badataa cunto xumida, nafaqa la'ida, hurda xumaanta, caloosha istaagan, waxaa ku badata hyperactivity, wax la yiraahdo qalqaali, annaga u bixino qalqaali. waxaa ku badataa umuurahaas badan bay ku badataa. aniga in yar baan ka sheegaya why aniga interest badan aan ku leeyahay. horta aniga waxaan soo dhigtay social welfare and community study ingiriiska jaamacadda Coventry University. social care badan waan meelo badan waan ka soo shaqeeyay. iga raali ahaada Soomaaliga gacanka uma fiicna, laakiin waan isku tijaabinayaa channelkan inaan Soomaali ku sheego kelmado badan English waan ku dariyaa لأنه ما أقاني معنى هذا إن لغة الصومالية. إن شاء الله تعالى channel كان the main reason أن أسميني waxay tahay inaan message u dirno ummadda Soomaalida waxaan anagu ka waalidiin Soomaali oo ciyaal autism leh haysta ama ADHD inaan message-kii u dirno dadka. way jirtaa sidaad cunugaaga u caawin lahayd. Just a little history, a bit of background. aniga walaashay cunugeeda markuu ahaa sanad yabar, waxaan dareemnay cunugii inuu isbedeliyo. waxaan ka aragnay calaamado ciyaalka kale inuu ka duwan yahay. cunugii wuxuu bilaabay 18 months markuu gaaray inuu qeyliyo, inuu habeenka soo kaco, inuu gacanihiisa caynka ku sameeyo flipping baa la yiraahdaa. just little bit buu sameeyay. cunugii kuma fiirin, indhihii kuma arkiyo, cunto xumidii baan ka aragnay, calooshii way istaagneed. and then after insha Allah maalin kale aan ka hadlaya in detail calaamadaha autism. waa insha Allah videoodka soo socda baan ka hadalnaa each day insha Allah tacaala. waxaan u sameynaa gaar ahaan topickii waxay noqonaysaa maanta cuntada, waxay noqonaysaa exercise, waxay noqonaysaa sharaabahaad siini kartid cunuga autismka. waxaan ka hadlaynaa waxa aanad siini karin oo maaragtay cunugii ma u anfaco. waxaan ka hadalnaa gluten free baan ka hadlaynaa, recipes baan sameynaynaa, different cuntaha wixii ciyaalkeennii annaga na caawiyey. annaga markaan oranayo waxaan I'm talking on behalf of a group of women. Anyway, just a little background story baan u noqonayaa. I'm sorry English baan ku dariyaa lana Soomaaligii baa in yar iga lumay. Anyway, walaashay cunugeeda markaan ku aragnay calaamadihii autismka, horta autism badan maan garanaynin. waxay ahayd wax murugo badan. maan fahmaynin cunuga sidaa loo dhaqmaa, maxaa caawitaan taala. ingiriiska ahayd health visitorka markaad weydiinayso waxaan oranaysaa assessment ma u sameyn karno, diagnosis, لأنه weli xoog buu u yaryahay. cunugii ma hadlinin. kelmaduu oran jiray markuu 3 gaaray. 3 markuu gaaray waxaa la bilaabay in baaritaan lagu sameeyo. marka baaritaankii lagu sameeyo waxay iraahdeen anagu hadda exactly diagnose ma siin karno, laakiin waxaan u malaynaa cunugu inuu autism leeyahay. okay. last year sanadkii hore cunugii nursery uu aaday. yani
maaragtay dadkii uu dhexgalay in yar laakiin still wuxuu ku waday qayladii cunto xumadii habeenkii buu kaciyey qayladii badneed waxaasoo dhan weli wuu sii waday okay sanadkii hore last year waxaan aniga damcay inaan sidaan research soo sameeyo aan arko cunuga sidaa loo caawin karaa leanno waxaanu maaha maaragtay sidaan u arkay allah subxaanahu watacaala xanuun kasta daawadiisii way taallaa laakiin annaga nagu xiran tahay inaan daawadii raadinno okay and I didn't believe inno khalaas cunug gacankaas weligii ahaanaya fa waan dabagalay okay marka research groupyo ciyaal autism leh dadka kale ajaanibka cadaanka whatever country they are groupyo khaasa way leeyihiin waan dabagalay waan galay groupyada waan ka bartay different protocols cuntada la siiyo cuntada aanan la siinin waxa hadalka ka caawin kara waxa keenay xanuunkan asbaabtiisii keentay waan bartay in yar waan ka bartay wallahi waa bad weyn information badanna waan ka soo helay haddo last year waxaan damcay inaan group sameeyo group dumar Soomaaliya WhatsApp waxaan rabay walaashay iyo asxaabteyda oo ciyaal autism leh inay isu wada imaadaan lana waxaan arkay walaashay kaligeed maaha hablo kale badan aan isnaqaano oo sanado badan asxaab nahay ciyaal markay dhaleen ciyaalkoodii waa 3 sano 4 sano 5 sano oo lagu wada sheegay autism dadkana adduunyada dacalkeeda wada degan yihiin dad waxay degan yihiin Mareykanka saaxiibad Carabiyada weeye Mareykan degan tahay hablo waxay degan Carabaha hablo Afrika degan yihiin hablo Yurub degan yihiin فوحنا ربي إنا يسوى ذكرنا فجروبكي وحو لبعتن قف بكوب بلاوي مانتن عن كهاد لي وحا كتشرا لبا بقولو كونتون دمرة والدين صومالي it's only for women لبا بقولو كونتون دمر صومالي بكتشرا جروبكا amazing mommies بنو بحناي لأنه هبلها وهبلو ما شاء الله كرتله هبلو دلقات بدن هبلو إلهي سبحانه وتعالى آمن سنة إلهي سبحانه وتعالى هديته عيال كودي أوسيا أي وضع أقبلين ميل وحان أستمرنا community ير أي استوهاشدان أي ماركتي مانتا هادي مد advice أباهان تهي تنكلا أشيغيسا وحان سوى ذكيرني هبلها ماركتي أقونتا له waxaan ugu jira hablo nurse waxaan ugu jira hablo macallimiin hablahaasaan ugu jira alxamdulilah rabbil caalamiin mid kasta maaragtay markay wax soo baratay bay walaasheed u sheegaysaa hadda groupkii nearly 1 year in yar baa ka haray u gaariya 1 year ما شاء الله تعالى الحمد لله رب العالمين wax badan baan ka faaidnay waan isu sheegnay wax badan ciyaalkii way caafimaadiyaan alxamdulilah rabbil caalamiin aniga haddeer waxaan joogaa Holland baan u soo guuray magaalada yaraahdo Eindhoven waxaa jira waalidiin Soomaaliya baan la kulmay oo ciyaal autism leh haysta laba hablood oo Caraba ciyaal yaryar oo autism leh haysta waxaan soo bartay baan u sheegay cuntada ha siinin waxa ka bedel vitaminka C waxaasan la dadaalay oo alxamdulilah rabbil caalamiin ciyaalkii in yar way soo ficnaanayaan laakiin kulligood maaha lan cunug kasta waa different autism spectrum the autism spectrum disorder waxaa jira cunug he is severely autistic waxaa jira cunug moderate autistic waxaa jira cunug mild autism haysta cunug kasta wax cunug anfaco cunug kale ma anfaciyo aan idin noqdo sheekada cunuga walaashay haddeer alxamdulilah rabbil caalamiin uu hadla iskuul caadi u tagaa he still autistic diagnosekii weli wuu haystaa cunugii waad la hadli kartaa waad la sheekeyn kartaa laakiin sidii haddeer waa 5 weeye 5 jirkii maaha levelkii laga rabay maaha laakiin alxamdulilah rabbil caalamiin uu soo caafimaadiya haddeertan waqtigan idin la hadliyo
waxaan soo ogaaday clinic two clinics ku yaala London mid waxaa la yiraahdaa biomedical intervention clinic midna waxaa la yiraahdaa brainstorm clinic qofka raba ha waco labada clinic hablaa tagay waxaa loo sameeyay ciyaalkii intensive testing waxaa laga qaaday kaadidii saxaradii dhiiggii waxay arkeen madaxii scan baa loo sameeyay wax badanna waa laga helay for instance mid baa laga helay cunugeeda wuxuu haystaa bacteria xun calooshiisa bacteriahana sidaan u taqaaniin calooshii maskaxda connection bay leeyihiin bacteriahi markaa laga helay hadda cilaaj prescription baa la siiyey kuwan waa dakhaatiir kulle specialist autism magaaladan joogo Eindhoven mid baa ku taala as well gabadh baan geeyay few days ago cunugii hadda baaritaan baa lagu sameeyaa kuwan waa kuwa private specialist anyway insha Allah taala episode-ka soo socda waxaan ka hadalnaa in detail calaamadaha hooyadu sida ugu garan karto cunugeeda autism inuu leeyahay calaamado gaaray leedahay kuwaasaan ka soo hadlinaa and then insha Allah taala waxaan ka hadlinaa wixii annaguna anfacay groupka anfacay ay ka arkeen ciyaalkoodii oo soo ficnaaniya one more thing groupka waxaan uga jirtaa gabadh maasha Allah tabarakallah groupka hadda ilaa 6 bilood baan ugu jirtay 7-8 months baan ugu jirtay gabadha cunugeedii wuxuu ahaa severely autistic cunuga muu hadli lahayn ma hadlo cunugii ma ku fiirinayo cunugii waa severe buu ahaa gabadha cunugeedii wax badan bay la dadaashay wax badan bay la dadaashay haddeertana waa inan weyn iskuul buu aadaa wuu kula hadlaya wuu kula sheekeynaya inankii insha Allah taala soon he will not be autistic anymore فأناقو gabadha waan isla shaqeynaa haddeer gabadha maasha Allah tabarakallah ma rabto inay social mediaha soo baxdo waxay permission isiisay inaan ka hadlo iyada waxay tiraahday dadka u sheeg autismka waa laga caafimaadi karaa okay لأنه iyadu cunugeedii alxamdulillah rabbil caalamiin he is still autistic but waxaad ka oran kartaa waa high functioning autistic cunugii wuxuu ahaa haddeer cunugii waa 13 jir markuu 3 sano ahaa bay hooyadii dadaal aad keentay research bay gashay meelal badan bay aaday cunugeedii wax badan ay la soo shaqeysay fa iyadu 10 years experience badan bay ku leedahay waa gabadh Soomaaliyada gabadha insha Allah taala iyada ii sameynaysaa all the topics bay ii sameynaysaa maalin kasta waxaan ka hadlino bay ii sameynaysaa insha Allah taala topic-yaasho dhan waxaan ka hadlinaa marka aan ku celinayaa calaamadaha autismka cuntada gaarka aad u sameyn kartaa cunuga autismka leeyahay uu ka fiicnaaniyo cuntaha aad ka deynaysid laana ciyaalka autismka leeyahay most of them they have what they called leaky gut caloosha sugan soo qaray leaky gut waxaa lagu radaa caloosha bacteria xun baa ku jirta ama xanuunaha caloosha magac kale leedahay way ii sheegtay wallahi waan iloobay sorry anyway insha Allah taala channelkan taas gaar ahaan bay u sameynaa topicyadaasaan ka hadlinaa insha Allah taala waan isku dayay inaan Soomaali ku sharaxo laakiin cudur idaara haddaanan kari karin English baan ku bedeliya kelmado badan لكن إن شاء الله تعالى وان اسكو تجابنية إن أنكو هادلو what else do I say والله nervous بانا هاي لأنه يوتيوب وليجي كما صوبحين ما نسلهين إن أنكو صوبحيو لكن مركي باهدي ماشا تالو وإلهي سبحانه وتعالى قفكي knowledge أقوان وح يربو كسيي فواجب ويكوت هاي إنا دادك وشيكتد قارهان أمدادا ما أقاني هدا channel عينك similar لو سميي
كهذا gaar ahaan autism كيو ADHD إن شاء الله تعالى also ADHD وان أصمين إن different topics لأنه هبلان وجود شرع عيال كودي ADHD هايستا so الحمد لله رب العالمين ها عنق ولا شيء الحمد لله هالدروسي عافي ماضية ددالكي أن لا ددالني ولا شيء لا ددال شيء الحمد لله وصوفي عناني هدر سكول عادي جو إنجليز كتجا وهادليا وآخرين كرا ماتس بوسمية ما شاء الله is very very smart ويا لكن waxaan garanay haddaan waalidkii la dadaalin cunuga improvement ma sameeyo horumar ma keeniyo lana ciyaalka autismka ama ADHD haysta waxay rabaan dadaal badan waxay rabaan si gaara inaad ula dhaqantid laano needkoodii waxay ka duwan tahay ciyaalka kale okay so insha Allah taala waxaan idinka codsanayaa inaad like ESRT, you subscribe I never thought I'll be saying that but please haddaad rabtiin inuu aan sii wadno channel kan please waxaan idinka codsanayaa like ESRT, subscribe please barakallahu fikum wallahi channel kan waxaan first saddex sabab baan u sameynay one waxaan rabnaa waalidiinka Soomaalida inaan u sheegno informationka aan haysano two waxaan u sameynay inaan maaragtay isla wada community usu sameyno oo meel aan isu wada iman karno aan ka hadli karno xanuunka autism Ilaahay subhanahu wa ta'ala baa keenay ceeb maaha wax laga khashilo maaha adiga qalad aad sameysay maaha كلنا مسلمين بانهاي most of us Somalida أنا شيء مسلمين بانهاي إلهنا وأنا مسنه إنه وحكستا حنونكي كان يداودين إنه كانيو ف I'm very hopeful إن شاء الله وأنا سلدة دالنا طب كذا كهذا ضد بان أنفعكرنا also وحربنا إن كندقنا صدقة for us إنه إلهي سبحانه وتعالى نقول عافية عيالك أنا لبع عيالة يرير بان هيستا and it's very difficult إن ماركتي program يوتيوب إن قارئ أهان different topic أصميه لكن waxaan ku dadaaliyaa inaan informationka aan haysano inaan dadka Soomaalida u gudbino insha Allah so walaalayaal comment-ka igu soo qora haddaad ka hesheen videogan topic-yada aad rabtiin inaan ka hadalno annagu already we have over 30 topics waan soo diyaarinay waxaan ka wada hadli lahayn insha Allah videoga soo socda This is the end of the video. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته